iyadoo looga reebay waxyaabaha qaar si ay ugu habboonaato jilidda. haddana kadib markii la soo baaray ee la xaqiijiyey qisadan dhabta ah, waxaa loo soo bandhigay sidii ay u dhacday. sida uu qabo dhaqanka dadka aan ka dhashay ee fulaanigu, aniga oo reerka ugu yaru waa inaan aroortii ugu hortooso oo aan soo guro xaabo si aan lo'da ugu shido dab ka celiya dhuuga dhibka ku haya. dabadeedna waa inaan waalidkay u tago oo soo salaamo. haddana waa inaan dhiil soo qaato oo lo'da liso. markaan lo'da liso waa inaan weylaha ku sii daayo hoyooyinkood. markaan kadib waa inaan isdiyaariyo si aan lo'da u foofiyo, sababtoo ah sida dhaqankanagu yahay, wiil kasta waa ku waajib inuu lo'da foofiyo, oo wiilkii aan lo'da foofin waxaa loo arkayaa mid wax matare ah oo lagu khasaaray. shaqadeyduna sidaasay ahayd. tan iyo carruurnimadaydii aad baan u jeclaa aabbahay, oo aabbahay wax kasta oo uu samaynayo waxaan jeclaa inaan la sameeyo. xataa markuu tukanayo waxaan dooni jiray inaan la tukado. waxaan qalbiga aad uga doonayay inaan la ka farxiyo isaga iyo ilaahayba. doonistaas oo igu sii kordhay markaan sii weynaaday. aabe, anigu waan barakaysanahay, waayo waxaad tahay aabbahay. adigu waxaad isiisay wax kasta oo wiil weydiisan lahaa aabbihiis. aabe, laakiin waxaan kaa codsanayaa hal wax. wiilkaygow, muxuu yahay codsigaasu? waxaan jeclahay in aan wax barto. waxaan jeclahay in aan galo madaraso si aan qur-aanka u barto. iga yeel oo fadlan ha igu diidin codsigaygan. ma wax ku dhibayo jira? maya aabe. waa sax, aad baa ugu raali ahay codsigaaga. waxaad aadaysaa bushi si aad wax ugu soo barato sheekh ibraahim. haye aabe. allah ha kuu gargaaro oo ha kuu nabad yeelo. aamiin aabe. waa hagaag, orod isdiyaari haddaba. haye aabe. waa yahay. mahadsanid aabe. waa yahay wiilkaygii. mahadsanid aabe. hadhow baan kuu imaanayaa. waxaan joogay magaalada Bauchi 3 sannadood oo aan qur-aanka ku baranayay guriga sheekha. keligay ma ahayn, balse waxaa meeshaasi wax kula baran jiray dad badan oo kale. waxaan baranay duruusta aas-aaska islaamka iyo adaabta. intaas kadib waxaan aaday Gombe oo aan 2 sano ka sii waday barashada islaamka. Gombe waxaan ku bilaabay barashada tafsiirka qur-aanka. haddana waxaan joogay Maiduguri muddo 2 sano ah anigoo sii waday barashada qur-aanka. markaan tagay Zaria waxaan aqaanay akhriska iyo qoraalka afka Carabiga. waxaan Zaria joogay 1 sano si aan u sii kordhiyo aqoontayda islaamka. markaa waxaan ahaa 22 jir. halkaa markay ii marayso waxaan bilaabay inaan raadiyo sidaan ku tagi lahaa Saudi Arabia oo wax barasho sare ugu soo qaadan lahaa. waqtigaas waxaan aabbahay ka helay fariin inaan guriga ku soo laabto. aabbahay wuxuu ka fekeray inay ii wanaagsan tahay inaan guriga joogo inta aan ka helayo wixii aan ku tegi lahaa waxbarashada Saudi Arabia.
laakiin wuxuu istusay inay fiican tahay inaan guursado ka hor inta aanan waddan kale aadin. taasay ahayd sababta aan guriga ugu noqday. mar dambena ma awoodin inaan safar aado. waxaan reerka la joogay sanad anigoo dib ugu laabtay shaqadeedii ahayd xoolo jirka. waxaan noqday wadaadka iyo macallinka tuulada. maalin markaan xoolaha soo daajiyey kadib waxaan ku laabtay guriga waxaana tukannay salaadii cishaha. markaan salaada ka baxnay waxaan u fadhiisanay inaan cashayno. aabbahayna waxa uu muujiyey sida uu uga xun yahay inaanan weli guursan, laakiin anigu waxaan qalbiga ku hayay inaan Sacuudiga ku soo barto culuumta daraasaadka islaamka oo aan aqoontayda islaamka kor u qaado inta aanan guursan ka hor. maxaa ku dhici doona xaasaskaaga kuwii adiga ku doonayo sideenu ka yeelnaa? aabe waad og tahay inaanan weli guursan. xaqiiqa, laakiin miyaanu idamka ilaahay ku guursan ninku? xaqiiqa waa idamka alleh. haddaba miyaadan shaki galin idamka ilaah? maya aabe, waxaan rabaa diinta alleh inaan si fiican u barto. sidaasuu qalbigaygu rabaa. waa hagaag, kugu aydan maayo damaca naftaada. laakiin Sacuudiga uu fog yahay. hooyadaana waxay ka baqaysaa haddaad tagto inaad soo noqon weydo. bal aynu aroortii si fiican ugu sheekaysano soo maaha? عاوية riyada kadib hurdadii waan ku noqon waayay. sariirtaan ku fadhiyay ilaa waa uu ka bariyo. waxaan damcay inaan aabbahay u sheego riyada, laakiin haddana waxay igu dhalatay inaanan u sheegin. subaxdii meel lama aanan aadin. gurigaan joogay si aan u nasto. fiidkii markaan tukannay salaada sidii caadada noo ahayd waxaan u fadhiisanay cashadii oo aan ku dul sheekaysan. markii dambe qof walba wuxuu galay qolkiisii hurdada. anna waxaan galay qolkaygii si aan u seexdo. durbadiiba mar labaad waxaan arkay riyo. wiilkayga maxaad halkan ka qabanaysaa? yaa garan maayo. ma ku geeyaa guriga?
wiilkayga waan ku jeclahay. markaan arkay riyada labaad ima aysan cabsi gelin oo uma aanan dhiidin sidii riyadii koowaad oo kale. durba waxay igu dhashay fikir ah, waa kuma ninkan i badbaadinaya ee raba inuu wax ii sharxo. dhaqsaba waxay igu dhashay fikir ah inaan aabbahay u sheego. waan kacay oo u sharxay riyadii, isna durba wuxuu qaatay go'aan. isdiyaari, waxaan u kacaynaa faaliyaha. aabba ma haysaa lafta koolada? haa, waa tan lafta. aniga itus aniga itus aniga bal itus. mid qaado. aabe, wiilkaaga wuxuu u gacan galay qumayooyin. ma runba? waxay ku dili lahaayeen 2 maalmood gudahood. nasiibkiinna waad ii timaadeen, anigaa wax ka qaban. waxaan ma aragtaa haa. ku xoq madaxiisa Haa. inta uusan seexan habeenkii. waa yahay. midkaan shid oo sidii fooxi ku shid qolkiisa inta uusan seexan. insha allah way baabi'i in riyada oo mar dambe soo noqon mayso. mar dambe soo noqon mayso? mar dambe soo noqon mayso weligeed. waa yahay. haa. waa sidaa. ma dhammaatay? haa, taga. mahadsanid. nabadgelyo. mahadsanid. haye wiilkayga. mahadsanid. mahadsanid. aabe, waa maxay? riyo kalaan arkay. riyo maxay ah? waxaan ku riyoonayay anigoo god ku dhacaya marka shayaadiinta arkay. aabe, midkood wuxuu lahaa miciyo iyo cidiyo dhaadheer oo wuxuu igu yidhi haddii aanan ku boodin godka waxa idili libaax gadaasheeda jooga. anigoo raba inaan godka ku boodo waxaan arkay ninka dharka cad. ninka dharka cad? haa, midkii riyada kale i caawiyey. muxuu kuu sameeyey? wuxuu i weydiiyey inaan guriga u socdo. waxaan idhi haa. haddana wuxuu i weydiiyey inaan u baahanahay caawimo. haddana waxaan idhi haa. markaasuu lugtiisa ku dulfidiyey godkii oo godkiina uu daboolmay oo wuxuu i geeyey gurigii. markuu guriga i geeyey wuxuu ii sheegay inuu i jecel yahay oo waanu tegey. ka waran ruuxyadii shayaadiinta? markay isaga arkeen way qarsoomeen. hadda iska seexo, riyadu way dhammaatay. aabe, waana cabsanayaa. waa wiilkaygay, maxaad riyo ugu cabsanaysaa? aabe, waxaan riyo ka weyn. isticmaal daawadii faaliyaha oo orod seexo. haddii riyadu ku soo noqoto aroortii waxaan aadaynaa Sogoto. waxaan u tagaynaa faaliya kale. haye tag oo seexo. habeenkii xigay waxaan arkay riyo kale, kadibna waxaan si xidhiidh ah u riyooday 6 habeen oo isku xiga. riyooyinkaas ninkii xidhnaa khamiiska cad ee nuuraya ayaa joogay oo siyaabo kala duwan
iga badbaadiyey ruuxyadii shayaadiinta. dhammaadka riyo kasta waxay iila hadlay siduu mar kasta iila hadli jiray. waan ku jeclahay wiilkayga, waan ku jeclahay wiilkayga, waan ku jeclahay wiil. markaas waxaan gartay ninkan aan ku riyoodaa inuu yahay ninka la yidhaahdo nebi ciise, midka ay masiixiyiintu ugu yeedhaan sayid ciise masiix. dabadeedna waxaan arkay riyadii ugu dambaysay. tani waxay ahayd riyadii 7. maxaad akhriyaysaa wiilkayga? ma fahmi karo. ma rabtaa inaan ku caawiyo? haa, waan rabaa inaad i caawiso. maxamed, kitaabkanu wuxuu ka yimid ilaah, waxaana ku qoran ereygiisa. aayadahan oo dhammu waa ereyga ilaah. ii kaale ee dhammaan kuwiinna culaabaysan ee dhibaataysanow, oo waxaan idin siin doonaa nasasho. igu soo xidhma oo wax iga barta aniga, waayo waan qalbi nuglahay oo waxaad aniga iga helaysaan nasasho. weligaa miyaad maqashay jidka, runta iyo nolosha? weligay ma maqal. waxaan ahay jidka, waxaan ahay runta, waxaan ahay nolosha. qofna uma tago aabbaha xaggaygu uga yimaado mooyaane. adigu kumaa tahay? waxaad ii taqaan nebi ciise. waxaan u imid inaan ku siiyo nolol daa'ima. haddaad aqbasho inaan ahay rabbiga iyo badbaadiyahaaga, waxaad noqon carruurta ilaah. ma carruur buu leeyahay ilaahay? carruurta ilaahay waxay ka dhashaan ruuxiisa ee kama dhashaan jidhka. ilaahay ma rumaysan tahay? haa, waan rumaysnahay ilaah. aniga i rumee. adduunkan waxaad la kulmi doontaa imtixaan aad u badan, laakiin riyaaq. adduunka waan ka guulaystay. miyaad rabtaa inaad i aqbasho? haa, waan ku aqbalayaa. markaan toosay subaxdaas goor hore, waxaan go'aansaday inaan booqdo nin masiixi ah oo ku noolaa tuulo noo dhow. waxaa la odhan jiray jonatan. waxaan rabay inaan dantayda u sheegto, waayo wuxuu ahaa nin wanaagsan. waxaana dareemayey inaan aamini karo. wixii culaysinayey waan u sheegay. jonatan wuu dhegaystay wax kasta oon sheegay. kadibna wuxuu aaday nin wacdiye oo ahaa oo joogay bawji. ninkanu aqoon buu u lahaa tuulada jonatan, waayo wuu tegi jiray xad kasta si uu uga wacdiyo kaniisadaha halkaas. qays, sidaan kuu sheegay, waxaan dooni maxamed halkan aan ku kulanno. waa yahay.
qays waa nabad ها يوناتان واد soo noqotay haa soo dhawow soo dhawow waxaa ila socda maxamed maxamed soo dhawow qays waan ku salaamay soo dhawow maxamed waxaa riyooyinkaaga iga sheekeeyey saaxiibka yoonataan waxaan jeclaan lahaa inaad adiga qudhaadu iga sheekayso qays waa dhab waxaan arkay riyooyin aad ii cabsiiyey dad dhar madow xidhan ayaa aad riyo iigu dhibay laakiin waxaa jira nin dhar cad xidhan oo yidhi waxaan ahay ciise isagu waa jidka iyo runta oo jid kalena ma jiro xaggiisa mooye waxa kaloo uu i weydiiyey inaan isaga aqbalo waxaan wacdiyaha u sheegay waxyaabihii aan kala kulmay riyooyinka lamarkiiba wuxuu igu gawaabiyey inaanan lumin wakhti kale laakiin aan aqbalo in ciise yahay rabbigayga iyo badbaadiyahayga haatan ma aqbalaysaa yeedhistii uu kugu yeedhay inaad qaabisho isaga haddaad oggolaatay waxaad middan ku heli doontaa nabadda aad u baahan tahay ee aan ugu hoggaaminayo iga dabadhe aniga oo ah maxamed aniga oo ah maxamed waxaan aqbalay ciise waxaan aqbalay ciise inuu yahay rabbigayga Inuu iyo yahay badbaadiyahayga rabbigayga. wuxuu tusi doonaa jidka nolosha aamiin waxaan hubaa nabadda uu waxay igu hoggaamiyeen tukasho fudud oo anna waxaan ka toobad keenay dembiyadaydii waxaan aqbalay ciise masiix oo wuxuu noqday rabbigayga iyo badbaadiyahayga isla markaa indhaha kala furay waxaan dareemay farxad iyo nabad ana weligay dareemin durba waxaa dhammaaday cabsidii iyo walbahaarkii oo way ka baxeen qalbigayga waxaa qalbigayga ku jiray wuxuu ahaa farxad iyo nabad isla markiiba waxaan dareemay ruuxa ilaah oo igu gawaabinaya inaan gurigii aado oo waalidkay u sheego waxaan helay kaas oo ahaa nimcada ilaah ee ku jirtay noloshayda malaha waryoniya wiilkaygii oo masiixiga ah wiilkaygii oo muslimka ahaa miyaa gaal noqotay ma dhaba fadlan qof ay toosiyo halkan fadhiyi maayo الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله toddobaad kadib waxaa ii yeedhay aabbahay si uu ii weydiiyo waxa igu dhacay waayo wuxuu ogaaday inaan akhristo kitaabka quduuska ah oo aanan aadin masaajidka waxaanoo kale weligee reerkan kama dhicin kamana dhici doono haddaba waa inaad laba mid ka dooratid inaad ciise ka tagto iyo inaad gurigan ka tagto oo dib ugu soo noqon abadan waxaad tahay aabbahay aan aad u jeclahay una sharfo wax ku dhibana weligay samayn maayo laakiin kama hadhayo waxaan ogahay inuu run yahay waxaan ahaan masiixi ilaa uu ciise yimaado si uu ii tuso halkan aadayo aabbahay markuu arkay inaan ku adkaystay jidkayga wuxuu qaraabadaydii oo idil ku booriyey inay arkaan inaan ahay nin cadaawo ah oo ay cadaadiyaan maalmihii waxay igu noqdeen sidii bilo badan oo kale kan qaad oo cab hadda aabe makaa dhabbaa inaad suni siiso iska cab asxaan aan ku weydiisto waa maxay iyo oggolow inaan tukado maya
hagaag tuko haddaad rabtid taas aniga ima qusayso balse waxaan cab rabbi ciisow waxaan sunta u cabbayaa adiga daraadda noloshaydu waxay ku jirtaa gacmahaaga orod seexo aabbahay iyo qaraabadaydii way ii heshiiyeen waxay isku raaceen markaan dhinto inay meydkayga ku tuuraan webiga dhammaantood waxay sugayeen inaan dhinto laakiin waxaan galay gudaha oo waan seexday waxbana ma aanan noqonin markii dambe waan toosay waxaan dareemay lallabo oo intaan bannaan ku orday sooma tagay waxaana ku noqday qolkaygii oo si raaxa leh u seexday waxbana ma noqon subaxdii dambe aroor hore anigoo ahaa qofkii ugu horreeyey ee aabbe baridiya markii arkay aabbahay aad ayuu uga xumaaday inaanan dhiman waayey durbadiyeba wuxuu warbixin u diray beeshii muslimka isagoo ku guwaabinaya inay soo qabtaan masiixiyiinta aniga i beddelay isla markaa xeerlaalyihii guud wuxuu igu riday xukun wuxuu yidhi waxaa ugu wanaagsan in la isoo qabto aniga oo la idilo xabadna la igu dhifto qof kasta wuu og yahay go'aanka laga gaaray wiilka waa la ogolaaday caawa inuu joogo habeenkaas markuu aabbahay soo noqday wuxuu isugu yeedhay qaraabadii oo idil wuxuuna go'aan adag ku gaadhay in la ciqaabo aroortii waxaa kaloo uu rabay inuu hal arrin xaqiijiyo waxaan rabaa inaad kaynta ku sugtaan oo istaajisaan ma i maqlaysaan waa inaad dhammaysaan waayahay aabbe tag oo la noolow dadkaa rabto aniga mar damba ma ina noolaalaysid marnaba tag tag ii siib suwaarkii iyo kabaha bax tag markaasaan dhulka ku dhacay anigoo xanuunka fallaadha igu dhacday la galgalanaya aad buu xoog badnaa xanuunku waxaana ku dhowaaday inaan u dhinto dabadeed waxaan ku fekeray inaan fallaadha igaga dhacday barida iska siibo waayo waxay lahayd mariid haddii aan isku daayo way dili lahayd waxaana gartay inaan iska bixiyo markaan iska bixiyey waxaan jiiftay dhulka oo waxaa iga socday dhiig ilaahay wuxuu adeegihiisa iga soo diray tuulada Jonathan wuxuu u socday inuu ka ugaarsado guriganaga agtiisa ninka ay arkayo wuu la socday sheekadayda wuu ka warhayay dhibaatada dhex taalay aniga iyo waalidkay iyo reerka oo idil ninkaas wuxuu isku dayay inuu iqaado oo igeeyo wadada weyn dhinaceeda uuna igeeyay wadada weyn dhinaceeda oo halkaa igu hayay
isla markuu waddada dhinaceeda i geeyeyba eebbaa noo gargaaray oo noo soo diray nin baabuur wata oo i geeyey isbitaal qaali ah oo la yidhaahdo Rimi Clinic. waxaana halkaa la igu sameeyey qalliin. dadkii masiixiinta ahaa ee tuulada Jonathan waxay ururiyeen lacag oo iga bixiyeen kharashkii isbitaalka. waxaana halkaa la igu baxnaaniyey muddo bil ah. waxaana ka aaday tuuladii Jonathan oo aan joogay muddo sanad iyo bar ah. aabbahay wuxuu ogaaday inaan halkaa joogo wuxuuna u sheegay arrintayda maxkamadda shareecada islaamka. waxaa la geeyay xabsi aan ku jiray muddo 6 bilood ah. waxaana la sii daayay bishii 7 iyadoo la igu daray askar booliis ah si ay ii geeyaan guriga. isla markii aan guriga tegay wuxuu aabbahay isugu yeedhay qaraabadii oo ku dhiirigeliyey in si fiican lay dhaqaaleeyo si aan u iloobo masiixnimada. intaas keliya ma ahayne haddaan masiixa ka tago wuxuu ii ballan qaaday inuu abaalgud ahaan ii siin doono 100 neef oo lo ah iyo inuu iga bixin doono yaradka si aan u guursado 3 gabdhood. wuxuu igu dhiirigeliyey inaan isku iloobo wixii hore. markaan soo laabtay waxaad looda raacayay muddo 7 bilood ah. qaraabadaydu waxay u maleeyeen in wax walba caadi ku soo noqdeen oo wax dhib ah aanan qabin. laakiin wuxuu qalbigaygu dareemayay in rumaysadkaygii uu sii yaraanayo. waxaan xaqiiqsaday aabbaha iyo qaraabadoodu inay isku dayayeen inay iga fogeeyaan ilaahayga oo aanan si adag u muujinin rumaysadkayga. soo gal. subax wanaagsan aabe. subax wanaagsan. halkan fadhiiso. waxaan rabaa inaan ka hadalno gabdhaha ku doonayo. wax kasta waan diyaariyey. aabe waxaan rabaa inaan kaaga mahadnaqo noloshayda oo dhan waxyaabahaad ii samaysay. laakiin waxaan rabaa inaad ii samayso hal wax. ii sheeg wiilkayda waxaad rabtid. waan kuu samayn. aabe waan kuu sheegi laakiin tan waa wax ciise keliya samayn karo. muxuu ciise ku siin karaa oo aniga ku siin karin? ii sheeg hal wax. aabe miyaad siin kartaa nolosha weligeed ah? maya kuma siin karo. aabe maadaama aadan isiin karin nolosha weligeed ah ma jirto si aan ciise kaga tegi karayo. markaan ka tegay guriga aabbahay waxaan aaday Yoos. waxaana ku noolaa halkaa muddo 2 sano ah. muddadaas ma aanan doonayn inaan wax xidhiidh ah la yeesho gebi ahaanba reerkanaga. mana rabin inaan iyaga sheegto. hase yeeshee waxaan helay fariin. maadaama uu aabbahay bukooday oo galay isbitaal wuxuu rabay inuu i arko. aabe wiilkayga. ma adigaa ii yeedhay? wiilkayga i cafi. i caafiya aabe. waan kugu gafay. wax badan oo qalad ah ayaan kugu sameeyey jaahilnimadayda.
oo adiguna hal eray ma ii dhihin. Aabe, waa horaan ku caafiyey. Laakiin anigu cafis kuma weydiisan. Kitaabka quduuskaana baraya inaan iscafino. Wiilkayga, aad ugu adkow Ilaahayga oo rumaysan tahay. Aabe, adigaa xataa uu noqon karaa Ilaahaaga. Ilaahayga ma aanan fahmin. Aabe, maxaadan fahmin? Ma waxaad u malayni inuu iga aqbali anigoo waxaan uga dambi galay? Isagu waa Ilaaha jacaylka. Hal wax unbaa la rabaa. Imisa layska rabaa? Waxba aabe, waa deeq. Waa deeq sidee ah? Waa deeq lagu helo Ciise Masiix oo wuxuu noqon badbaadiyahaaga. wuxuuna ku siin doonaa nolosha weligeed ah. Miyaad aqbalaysaa? Waan jeclaan lahaa inaan helo deeqdaas. Aabe, aan tukanno. Haye. Hadalkan iga daba dheh. Haye. Ciisow, hortaadaan imid. Ciisow, hortaadaan imid. Hortaada waxaan u imid inaan dembigayga cafido. Hortaadan waxaan u imid inaad dembigayga iga cafiso. Inaad noqoto Rabbigayga iyo badbaadiyahayga. Waxaan rabaa inaad noqoto Rabbigayga iyo badbaadiyahayga. Aamiin. Aamiin. Hadda aan tukado inaad bogsato. Ha u tukanin inaan bogsado. Sabab aabe, waa Ilaahay kan wax bogsiiyaa. Ma rabo inaan bogsado. Waxaan diyaar u ahay inaan tago oo la kulmo Ciise. markaan tukannay 3 saacadood kadib aabbahay wuu dhintay. wuxuu dhintay isagoo nabad iyo farxadu ka buuxaan. aabbahay wuu ogaa meesha uu tegayo. wuxuu u tegay Ciise. heshiiskanagu wuxuu xaliyey dhammaan wixii dhibaato hore noo dhex maray. Ilaahay baa dhammaan masaxay. saaxiib, taada adigu ka waran. diyaar ma u tahay in dembiyadaada laga cafiyo? ilaah waa ilaaha rajada iyo qalbi qaboojinta. ilaaha aamin ah. ilaaha runta iyo xaqnimada. ilaah waa jidka oo isagu waa runta, oo isaga xaggiisaynu ku helnaa nolosha weligeed ah. diyaar u noqo inaad aqbasho oo isagu ha noqdo ilaahaaga iyo badbaadiyahaaga. saaxiib, hadda diyaar ma u tahay inaad toobad keento oo aad aqbasho isagu inuu yahay Rabbigaaga iyo badbaadiyahaaga? isagu waa diyaar, wuuna ku sugayaa. isaga bari hadda, oo baahidaada oo idil wuu dabooli doonaa. wuxuuna kaa dhigi doonaa mid nolosha ku guulaysta.
waalidka waxaa caado u ah inay carruurtooda ilaaliyaan oo dhaqaaleeyaan. maxamed aabbihii sidaasuu sameeyey, balse maxamed xadkii buu tallaabay, wuxuuna aabbuhu u arkay in abaalkiisu yahay dhimasho. waxaa fursad loo siiyey inuu ka noqdo, laakiin garashadiisu way sii weyday taas. wuxuu ogaa waxa uu arkay inuu riyo ka weyn yahay. marka aynu isbarbar dhigno xidhiidhka ka dhexeeyey maxamed iyo aabbihii iyo midka ka dhexeeya ciise iyo ilaah, waxaa inoo muuqanaya wax kala duwan. maxamed wuxuu aabbihii ku xukumay inuu u dhinto dembiye isaga lagu eedeeyey. ilaah aabbuhuse wuxuu ciise ku xukumay inuu u dhinto dembiyada dunida. waxaad isweydiin kartaa, ciise miyuu ka cadhaysiiyey ilaah aabbaha? haba yaraatee maya. injiilka matayos cutubka 3 ilaah wuxuu ka yidhi ciise, kan waa wiilkayga aan jecelahay ee aan aadka raalliga uga ahay. muddadii uu dunida ka adeegayey, ciise ma samayn wax ka cadhaysiiya aabbihii. haddaba muxuu aabbihii, waxaan ula jeedaa ilaahaye, muxuu u doortay wiilkiisu inuu ku dhinto isku tallaabta korkeeda, sidii isagoo dembiile la cambaareeyey oo ceebaysan? aabbe aan iin lahayn muxuu u oggolaaday dhimashada wiil aan iin lahayn, wiil dhan kasta ka raalli geliyey oo uu ku qancay? jawaabta waxaan ka helaynaa hawshii uu u yimid masiixu. ma aragtaa, ciise dunidan uma iman inuu sameeyo doonistiisa, laakiin wuxuu u yimid inuu sameeyo midda aabbihii. oo doonista aabbihiina waxay ahayd in wiilkiisu u dhinto dembiyada dunida. injiilka yooxana cutubka 3 aayadda 16 ereyga ilaahay wuxuu inoo sheegayaa, ilaa intuu dunida jacayl u qabay wuxuu siiyey wiilkiisii keliya ahaa, si mid kasta oo isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeeda. warqaddii 1 ee yooxana cutubka 4 aayadda 10 waxaan ka akhriyaynaa, kan waa jacayl, mana aha inaynu inagu jeclaannay ilaah, laakiinse isaga ayna jeclaaday oo wiilkiisu u bixiyey inuu dembiyadeenna la bari u noqdo. saaxiib, ilaahay jid buu inoo furay aynu jannada ku aadno. mana aha shuqulladeenna wanaagsan ama ficil geesinimo aynu samayno. sidoo kale shardi ma ahan inaan riyoonno ama muuqaal aragno. inkastoo aynu aragnay in middan ila adeegsaday si uu inoo soo gaadhsiiyo farriintiisa ku saabsan badbaadada. jidka la hube ee jannada lagu gaadhaa waa rumaysadka ciise masiix, oo isaguna wuxuu iska sheegay, waxaan ahay jidka, runta iyo nolosha. qofna uma yimaado aabbaha xaggaygu ku yimaado mooyaane. miyaad raadisaa inaad ilaah raalligeliso? ma jeceshahay in lagu xaqiijiyo inaad jannada gelayso? haddii doonistaadu sidaa tahay, waxaad ogaataa in ilaahna sidaa kula doonayo. haddaba aniga ila tuko, si dembiyadaada lagaaga cafiyo oo aad u hesho hadiyadda nolosha weligeeda. ilaaha quduuska ahow, waxaan ahay dembiile, anigu isma badbaadin karo. rabbi ciisow, waxaan ku weydiisanayaa inaad qalbigayga gasho oo ii dembi dhaafto. aamiin. haddii aad tukashadan si niyad buuxda u tukatay, dhammaan dembiyadaadii ilaa uu ka saamaxay. ku soo dhowow qoyska ilaah.